السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo sheeko yar oo anigaba aan la yaabay, taasoo weli aanan dhammaanin balse hadda goordhow ka dhacday wadanka Jarmalka, taasoo wax yar booliska ay ka sheekeeyeen qaabka iyo waxaas ay wax u dhaceen balse aanan dhamaystirnin oo muddo ilaa 6 bilood saan u maleynayo weli socoto baaritaankeedii waxeeda. sheekadan waxay ka dhacday isla Jarmalka. sheekadan cajiibka waxaa sameeyay gabadhan la yiraahdo Sharabaan oo kasoo jeeda wadanka Ciraaq. sidoo kale waxaa jirto gabadha iyadana dhibka lagu sameeyay oo kasoo jeeda wadanka Algeria oo Khadija la dhaho. sheekadan oo u dhaxayso labadan gabdhood oo gabar kamidana ay dhiban doonto khiyaanooyin iyo qorshooyin loo dagayo awgeed. sheekadan waxay ku bilaabatay gabadhan la yiraahdo Sharabaan waxay kasoo jeedaa wadanka Ciraaq, taasoo reerkeedii iyo qoyskeeda dhammaan ay degan yihiin wadanka Ciraaq balse ay la rabaan nin ka soo jeeda isla wadankooda Ciraaq. laakiin Sharabaan waxay leedahay saaxiib kale oo ka soo jeeda wadanka Kosovo, ma rabto ninkaas Ciraaqiga oo reerkooda ay la rabaan. si ay uga badbaado oo ninkan ay u guursato ay waxay u degtay qorshe la yaab leh oo aad markaad fiiriso maskaxdaada ma kugu soo dhacayaan as leedahay qof bini aadan sidaan sameyn kara isbedeysa. waxaan rabaa marka inaan ka sheekeyno qaabka ay u sameysay iyo qorshaha maskaxdeeda soo galay iyo sida waxaan dhan u qorsheysay. Sharabaan waxay raadisay gabdho u eg sida qaabka wajigeeda, jirkeeda, timaheeda wax u eg. maadaama gabar caan ah oo Instagram-ka caanka ay tahay, waxay aad u raadisay gabdho u eg si ay u hesho. saas darteed gabdho badan oo qaabka jirkeeda iyo qaabka wajigeeda wax yar ay ishabahaan la xiriiray ee dhahday shaqooyinaan idii haya. marka waxa u soo jawaabay oo kaliya gabadhan Khadija lahayd. Khadija shaqo way rabtay laakiin iyadoo ka shakisan waxay tiri anaa shaqo u baahan. dib u la xiriirtay marka Sharabaan waxay tiri shaqaan ku haya laakiin horta inaan ku arkaa rabaa maadaama hadda aan soo cusubnahay inaan ka soo qayb gaso show ka dhacay Jarmalka oo fanaanada weyn ee raabarka Jarmalka ee Luna la yiraahdo show ay qabanayso. showgaas inaan ka soo qayb gasho oo aan ka ciyaarto meesha saaran horta si aan isku aragno kadib anaan shaqo ku haya. way ka shakisay marka qof aadan aqoonin oo Instagram kala soo xiriiray oo ku dhahayo shaqaan ku siinaa balse showgaas horta ka soo qayb gal shaki yar galay. waxay sameysay marka gabadhii weyneed ee raabarada ahayd ee Jarmalka u dhalatay ee Luna ay message u qortay gabadhan Khadija waxay dhahday message dheer u dirtay oo ma showga qabsanaysa showgaaga inaan ka soo qayb galaan rabaa qof taageero ku ahay. saas darteed gabadhii Luna way u soo jawaabtay waxay tiri waxaas waa fake, aniga wax show aan qabsanayo ma jiro. marka dad kula soo xiriiray dad fake ah. Khadija iyada marka hore ka shakisanayd gabadhan Instagram kala soo hadashay Sharabaan way la xiriirtay waxay tiri waxa la xiriiray Luna gabadha oo raabarada waxay u tiri wax show aan qabanaa ma jiraan waxaas waa fake. maadaama qorshihii wax yar oo ka jajabay haddana waxay isku day inay si kale u bedesho sheekada dhan oo waxay tiri waa sax oo showgii waxa loo baajiyay arrimo jira awgood saas darteed dib u dhacay marka shaqadii iyo wixii baan ku hayaa soo bax si isku fakiso ama si isku badbaadiso qorshe kale intee degtay. markii dambe iyadoo shakisan weli aanan kalsooni saas qabin way ogolaato Sharabaan iyo ninkii Kosovo ka soo jeeday oo saaxiibkeeda ahaa oo ay rabtay inay guursato oo qorshahan oo dhan ay u sameynayso darteed waxay soo wateen gaarigii Sharabaan oo gaari Mercedes ay lahayd oo marka dambe booliska ay xaqiijin doonaan. kadib waxay soo aadeen anaga ku imaanaynay dhahin Khadija gurigeeda. Khadija marka waxay u jirtaa Jarmalka wada degan yihiin laakiin meel 100 mayl u jirta oo kale intay degan tahay. ayaga doonay oo baabuurkooda ku soo qaaday then meeshii la rabay marka magaalada inay u geeyaan waxay tageen meel baadiye oo soo dalxiisayna waxa ay meel duurka ah. markii ay meesha baadiyaha ay tageen war waa laga waayay. markii dambe gabadhan Sharabaan oo qorshaha degaysa reerkeeda waxay u sheegtay in nin kaleento oo hore u furay ayada nin kale hore u soo guursatay ninkaas kaleento inay la kulmayso oo arrimo ay ka leedahay soo saas darteed ay soo maqnaanayso 2 maalin ay ku maqnaanayso. reerkii ay ka soo jeeday Sharabaan way waayeen muddo 2 maalin 3 maalin gabadhiina wax war iyo wax telefoon kama hayan. way raadiyeen marka booliska u sheegeen gabadhan la naydeen then booliska wax sidaas baaritaan sameyn laakiin reerkii aad u raadiyeen. markii dambe waxay heleen gaarigeedii Mercedes-ka ahay oo meel cidla ah yaalo. kadib gaarigii reerkii markay baareen meydab ku dhex jiro. meydkii markay fiiriyeen waxay u ekeed gabadhoodii inay tahay. marka booliska ugu yeereen. booliska markay imaadeen waxay dhaheen waa meyd gaarigiina waa gabadhan marka sababtay u dhimatay inaan baarnama. baaritaanada markii la sameeyo markuu dhinto qofka waxyaabo waxa la sameeyo autopsy waxa la oo loo fiiriyo qofkan waxa lagu dilay ama waxa uu dhintay hadii sun la sii waxaas
soo reerka ayagoo ogoleen oo dhahayo gabadheeni wayba tahay murug kale inta marabno iyo dhuxma kale inaan sii fiirina inaad duugana rabnaa ayagoo dhahayo booliiska ka diiday booliiska way qaadeen gabadhii iyo baabuurka iyo wixii dhan waa la wada qaaday gabadhii marka baaritaankii markay dhameeyeen oo autopsy in waxay ogaadeen kaliya wajiga midi zaid looga dilay maadaama wajiga bas gabadhan laga dilay oo wajigeeda dhan oo baaba'san jirkeeda kale oo nadiif yahay waxay dhahan qorshe ka jira meesha marka waxay dhaheen reerkii u waceen gabadhiina inay tahay in kale inta si aan u ogaano waxaan u baahanahay DNA ayagoo ka xun reerka oo ayagoo ka murugaysanay oo ongoleyn waxay dhaheen waa ogolnahay markii dambe DNA reerkii iyo gabadhii baaritaan lagu sameeyay 24 saac kadib booliiska waxay u yeereen marka reerkii Shaarabaan booliiskii warbixintii iyo baaritaankii ay heleen markii qoyska ay la wadaageen waxa yaab leh noqotay qoyska waxa loo sheegay gabadhan inaysan gabadhooda ahayn soo gabadhan maadaama laga helay gaarigooda Shaarabaan gaarigii ay lahayd laga helay meedkana aysan Shaarabaan ahayn waxay dhaheen baaritaan ku sameeynaa si aan u ogaano gabadhan sababta loo dilay ama inay ka dambeysay gabadhiina Shaarabaan dilka gabadhan warbixinta marka aan qaybtii hore idinku sheegay oo dadkan inay la xiriiray iyo waxaas dhan booliiska gabadhan telefoonkeeda iyo Instagram-ka labada gabdhood oo la baaray waxa laga helay in dadkaas ay la sheekaysan jirtay inay la balantay in qof u eg ay raadinaysay in qorshaha ayadii iyo ninkan oo Koosofka joojiyada saaxiibada ay yihiin ay isla degeen oo ninka xataa baaritaan gooni Instagram-kiisa wixiisa lagu sameeyay adiga warbixinadii ku wada sheekaysan jireen la helay markii dambe oo qiyaasi kartaa gabadhaada oo lagu dhahay waa la dilay oo way dhimatay oo meedkeeda la baara hadana lagu dhaho gabadhaada way nooshahay oo ma ahan qofkan farxad Soomaa reerkii iyo shock soo reerkii kale gabadhan dhalay la raadi gabadhan waxa la ogaaday inay tahay gabar la yiraahdo Khadija oo ka soo jeedo wadanka Algeria oo reer muslim ah ka soo jeedo soo reerkii kale inta la helay reerkii kale inta maadaama loo sheegay gabadhooda inay dhimatay aad ugu walaacsanayeen way iska sugeen marka baaritaanka inta ka dhamaanaan anaga meedka haynayna dhayn soo gabadhii kale inta waxa laga helay marka Shaarabaan waxa laga helay iyada iyo ninkii Koosofka ka soo jeedo way heleen gabadhii Shaarabaan iyo ninkii Koosofka ka soo jeedo oo saaxiibka ay la ahayd labadooda oo biisa cunaya ay booliiska heleen markii dambe waa la soo qabtay xabsiga ayaa la keenay marka waxa cajiib ah gabadhan si ay u hesho ninkan Koosofka ka soo jeedo oo saaxiibka ay la tahay oo reerkeeda ay uga badbaada ninka ay ku dari rabeen oo Iraaqiga ahay ay waxay u sameysay qorshe la yaab leh oo adi xataa aan kugu soo dhaceynin in aad gabar ku ekrayso oo aad disho then gabadhaas adi meedkeeda loo maleeyo meedkaaga oo aan baaritaan lagu sameeyno wajiga midiyo badan laga geliyo then iidan ay ku raaxaysato nolosheeda ninkii rabtay ee hesho reerkana saas ay ku iloobaan reerkan kalena gabar la'aan ku dhacdo waa khiyaano aad u daran markii aad fiiriso adiga xataa aysan kugu soo dhaceynin ama qof bili aadana saas sameyn kara isdeysid soo baaritaanka wili uu socdaa I think 7 bilood 6 bilood inuu socdo August 16keedii qorshahan dhacay marka waxaan kala talinaa qofkii kula soo xiriiro aadan ka sayninoo ama shaqo ku siina ama qorshaan ku haya ku dhaho I think ina ka fikiri doonto wax badan sababtoo ah khiyaanada online kale iskaga geysto ma ahan mid yar ma ahan warjayna in shakadan meeshii ku dhamaatana aan ogaan doono maadaama booliiska warbixinta dhameystiran wili aysan soo saarin sida la filayo iyo sida booliiska wax yar ay ka sheegan oo kaliya warbixinteeda aan idila wadaagay maadaama meelo aan ka akhriyo sheeko la yaab la aniga bay igu noqotay waxaan rajaynayaa inaan dhameystiri doono wixii booliiska ka soo baxo iyo wixii ku soo kordhaba insha Allah oo kuma santiin daawadashadiina waxaan idinkaga tagaynaa Ramadaan Mubaarak